waxaa fakatay sirtii qarniga kadib markii ciidamada nabad sugidda ee dalka Liibiya ay gacanta ku dhigeen Abu Xaafis oo imaam ka ahaa masjid ku yaala magaalada Benghazi madaxna u ahaa kooxaha daacishiinta ee dalka Liibiya. Abu Xaafis ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay muxaadarooyin kulul uu ka jeediyo masaajidka waxa ugu baaqi jiray dhalinyaradu inay dagaal ku galaan dalka Masar oo ay xoreeyaan. ciidamada Liibiya oo dabagal ku hayay ayaa ogaaday in magaciisa runta ninkan la yiraahdo Benyamin Ephraim uuna yahay muwaadin u dhashay dalka Israa'iil. haddaba arrinka xiisaha leh ayaa ah in Benyamin uu markii dambe qiray inuu ka tirsan yahay laanta mustacbariin oo u qaabilsan Mossadka dalka Israa'iil. wadamada Carabta iyo Islaamka shaqadooduna ay tahay inay dhex galaan bulshooyinka Islaamka, waxayna qoraan xadiisyo iyo kitaabyo fiqiya, waxayna aasaasan firqooyin diina oo been abuura, waxayna dhalinyarada ku booriyaan inay isqarxiyaan. waxaase ugu yaabka badnayd markii uu qiray in kooxaha Daacish iyo weliba kooxda Soomaaliya ka dagaalanta ee shabaab shayaadiin ay iyagu si dadban maamulaan.